isku waqlali karaa haddii aabihiisa u waqlali. alxamdulilah wanqalka waalidka laga rabo horta waa sunno, ama waalidku ha sameeyo ama qofku isaga ha iska sameeyo. haddii laga tago sunna laga tegay ee lama dembaabin. hadduusan qofka waalidkii duruuf dhaqaale ahaan awoodinna dee xataa sunno ahaan looguma laha. waajibkaaba markii aan la awoodin laga cafiyaa qofke, sunnaduna waa ka sii mudanta. haddii qofku qaangaadho, waalidka waxaa laga rabaa wanqal inuu sameeyo inta aadan qaangaadhin. haddii adigu qaangaadhiya baalo qof aad noqoto, waalidku hadduu kaa samaynayo, adigu inaad aqbasho oo idan iyo oggolaansho kaa haystuu u baahan yahay. waayo markuu samaynayo adiguu wakiilkaaya. markii qof wakiil laga noqonayana waa isaga idan iyo permission in laga helo. waa adigu haddaad wax yeelatana aday kugu wareegaysaa sunnadii, oo ina adigu iska samaysa wanqalkii baa lagaa doonayaa. haddaadan samaynna dembi ma aha, oo markii horeba sunnay ahayd oo salaad iyo soon sunnoo laga tegey kama cusla. wayse fiican tahay inaad samayso. dee waxa khayrka ee sunnadoo dhan baa in la sameeyo wanaagsan. waxa xoolahan loo qalayana oo ilaahay looga mahad celinayo, adiga inuu ku abuuray oo waalidkaana maynan ku soo gadane hibe iyo hadiyad rabbi uga timidaa tahay. adigana dee noloshoo dhan baa lagu hibeeyo hadiyad kugu timida. adigoo dhan baa waxaad tahay baa lagu siiyey. suuqa indha lagama helo, dhagana lagama helo, aqlina lagama helo. adigana lacag kuguma fadhiyaanoo bilaash baa lagugu siiyey. marka rabbi shukran inaad tiraahdo baa wanqalka loogu talagalay. waa sunno inaad samayso. haddaad qaan gaadhayna adaa lagaa doonaya. wabillahi towfiiq.